ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh noo suurtageliyey howlahan waaweyn iyo shaqooyinkan qiimaha badan ugu fadhiya maanta galabta waxay noo tahay howlihii hore u socday iyo horumarintii maalin ama galab ka mid ah oo aan goobjoog u nahay ama aan halkan ku xari jirnay suuqan ganacsiga iyo nolosha bulshada wax badan ka bedelaya hadii la yiraahdo dib u dhiska iyo horumarintu hay'adaha dawladda iyo xarumaha dawladda kaliya kuma socotee waxay dhinaca dadweynaha iyo noloshooda iyo ganacsigooda iyo horumarintoodana waa ka socotaa suuqani waa suuq soo kordhin doona wax badan sida la sheegay meeshaan suuqay hore u ahayd 30 qof ganacsi yar ku lahayd maantana 200 iyo dheeraad ayaa u suurta gashay inay helaan xarumo ama goobo ganacsi oo ku habboon ganacsiga oo si standard u dhisan oo suuqan weyn oo dhinac walba ka hagaagsan ah oo xolahooda ay runtii wax badan noloshooda ka bedelaya sidaas oo kale haday tahay ganacsiga sidaan kala suuqyadii ah iyo haday tahay dhinaca ganacsiga xoolaha iyo haday tahay qayb kasta oo bulshada lagu soo qaadayo lagu kabayo noloshooda kor lagu qaadayo way ka soconaysaa horumarinta diilaa yiraahdo runtii waa dib u dhiska iyo horumarintu waa isla socotaa hay'adihii dawladda burburay ama meesha ka baxay kaliya ma aan soo kabine sidaan hore u sheegnay sidaan waa ku socotaa iyo dadka noloshoodii iyo maaragtay in la kor loo qaado ganacsigoodii noloshooda waxaan u mahad celinaynaa deeq bixiyaashii naga kaalmeeyey suuqan weyn gaar ahaan midowga Yurub intii hore noola qabteen iyo suuqan iyo kuwa dambe ay nala qaban doonaanba waa ugu mahad celinaynaa waana runtii aad iyo aad u leenahay waa mahadsantihiin iyo cid kasta oo gacan naga siisay dib u dhiska iyo dardarta galmudug ay ku socoto oo ay ku soo kabanayso dhammaan mas'uuliyiintii hawsha manage maamulayna waxaan leenahay waa mahadsantihiin iyo intii fulisay shaqooyinkan oo hay'adihii fuliyey aad iyo aad mahadsantihiin waxaan leenahay jihada cusub horumarka horu socodka galmudug ayaa noo wada balana wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh